Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. President, it's a great honor and pleasure to be here in the Democratic Republic of Congo. safarkii maxamed cabdilaahi farmaajo uu ku tagay dalka Congo waxa uu muuqday sida dadka qaar ay ku sifeynayaan inuu ahaa bilowga maalmo adag oo siyaasadeed gaar ahaan arrinta Soomaalidu ay ka gudubtay xayndaabka gudaha dalka u talowday wadamo ka fog xaaladda Soomaaliya waa bilo ay qaadan doonto midowga Afrika iyo dhexdhexaadin cusub oo ku saabsan arrinta doorashooyinka ee Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradku waxay u arkaan inay tahay mid soo afjartay safarkii dalka Congo oo ku tagay madaxweynaha dawladda federaalka ahi mid muujinaysa in xaaladda siyaasadda ee dalka uu ka doorbiday in gudaha lagu xalliyo dibadda xoogana uu saari doono sidii uu midowga Afrika uga heli lahaa taageero xoogan laakiin dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay durba ku tilmaamayaan in dawladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo uu dareemay culays siyaasadeed oo xoog leh uga yimid xagga reer galbeedka taas beddelkeeda uu xoogga saaray in uu garab iyo gaashaan ka helo midowga Afrika ama ugu yaraan xaaladda siyaasadeed ee Soomaalida lagu xalliyo majlisyo ka baxsan xaaladda Soomaaliya shaki male in xaaladdu hadda ay ka baxday gudaha dalka u talowday midowga Afrika maalmo dhowna ugu yaraan la arki doono dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida oo ku shiraya meel ka baxsan gudaha Soomaaliya afisoni way ka gudubtay marxaladdu waxayna u talowday magaalooyinka ka baxsan gobolka waxa diiradda la saari doonaa tubta doorashooyinka ka qaybgalayaashu waxa ay noqon doonaan kuwii 4 sano ay diidaneed fiila Soomaaliya hasaamilayda siyaasadeed oo hadda ay ogolaatay ujeedada ogolaanshuhu ma ahan mid iska timid waa cadaadiska siyaasadeed ee gudaha oo sii kordhaya dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay rumaysan yihiin in ugu yaraan 4 bilood ee soo socota ay qaadan doonto arrinta ku saabsan dhinacyada siyaasaddu ay heshiis ka gaaraan arrinta doorashooyinka madaxweynaha dawladda federaalka waxa uu xalay sheegay inay u baahan yihiin dhammaan doorashada ay ka qayb galaan qof kasta oo Soomaaliyeed iyo dadka ugu yeeray saamilayda siyaasadeed taasi durba waxa ay muujisay farmaajo inuu ka tanaasuli doono ugu yaraan qodobo waaweyn oo ka mid ah arrimihii kala duwanaa ee dhacay toddobaadkii la soo dhaafay arrinta ku salaysan muddo kororsigu waxay u muuqataa mid cimri ahaan soo gaaban doonta laakiin inta ay qaadan doonto waa waqti kale oo dadka siyaasadda falanqeeya ay ku tilmaamayaan ugu yaraan 4 bilood ee soo socota in dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay adag tahay inay isfaham heshiis ka gaaraan dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan wixii ka dambeeya waxaa loo arkaa midowga Afrika inay soo magacaabi doonaan ergey gaar ah ama awood dheeraad la siin doono ergeyga hadda u jooga gudaha Soomaaliya kaas oo ku wajahan sidii uu xal rasmi uga keeni lahaa gudaha Soomaalida shaki male in xaaladdu hadda ay ka gudubtay marxalado badan oo horay u huursanaa haddana loo bareeri doono sidii dhammaan dhinacyada oo midaysan ay u wajihi lahaayeen tubta doorashooyinka 12 Abriil golaha shacabku waxa uu codeeyay muddo korrin 2 sano ah qabashada doorasho qof iyo coda guddiga doorashooyinka oo doorashada maamula qaraarkaasi waxa uu muuqdaa mid fiila Soomaaliya hadda ay u raadinayso wadiiqo ugu yaraan ay wax uga dhinto ama u burburisaba taas waxa laga fasiranayaa safarka u horeeya ee farmaajo ku tagay Congo arrimaha cadaadiska ee socda iyo dadaalka xoogga leh ee ku wajahan in Afrika loo daayo arrinteeda inay xalliso Mareykanka midowga reer Yurub iyo Ingiriisku waxa ay ka walwalsan yihiin tallaabada farmaajo uu qaaday ee muddo kordhinta ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wan waxa uu hadda ku maqan yahay fasaxiisi caadiga ahaa sidaas oo kale safiirka UK u joogtay Soomaaliya ayaa ayana 2 galab ka hor ka huleeshay Muqdisho sidaas oo kale ergeyga midowga Yurubna waxa uu dareemayaa culays weyn oo siyaasadeed midowga Yurub iyo gaar ahaan reer galbeedku waxa ay doonayaan in dhacdada iyagu ay xaliyaan ayna noqdaan cidda sida rasmiga go'aanka u qaadata hase yeeshee fiila Soomaaliya waxa ay ka doorbiday midowga Afrika inay ka raadiso xalka kama dambaysta ee doorashada taas oo ay u aragtay in ugu yaraan ay ka heli karto cimri dheersi siyaasadeed
Somali, Somali,